عند عاشقه qaybtii labaad ee sheekadii xiisaha badnayd markii ay qabsatay dhacdadii murugada lahayd isla markiiba uusan wicin saaxiibtii Anisa waxa uu ka xishooday inuu dhaho waa lay dhacay waxa uu ka baqayay inay Anisa u aragto inuu been u sheegayo ama uu doonayo inuu lacag been abuura ka qaato muddadii Ridwaan xishoodka uu la aamusnaa waxa akirantay xaaladii gabadhii Anisa markii ay waayday Ridwaan waxaa la soo darastay walwal iyo walbahaar habeen kasta waxay ka fakartaa xaaladda Ridwaan iyo qaabka uu ku nool yahay waxaa la gaaray xilligii imtixaanada dugsiyada sare ee magaalada Muqdisho Anisa waxay maraysay galaaska ugu dambeeya haddii ay imtixaanka ku baasto waxay ka qalin jebinaysaa dugsiga sare waalidka Anisa waxa uu diyaariyay in waxbarasho loogu diro dalka Pakistan nasiib darro Anisa kuma aysan baasin imtixaanadii oo waa ay ku dhacday sanadkii ugu dambeeyay Anisa qalbigeeda waxaa mashquuliyay jacayl macallimiintii iskuulka markay saxayeen maadooyinka Anisa warqadaheeda waxaa ku qornaa sida tan Ridwaan I love you maxaa kugu dhacay miyaad nacday haddii aad nooshahay telefoonka guriga iga soo wac waa ku dhima rabaa macaane iga soo gaar adiga ayaan ku ildaranahay noolaha dhamaantood nololka wadane nasibku isiyo waxaad tahay naftaydii noolaha dhamaantood nololka wadane nasibku isiyo waxaad tahay naftaydii النور وداعني إلى ناحي عاشقا النور وداعني إلى ناحي عاشقا macallimiintii markay arkeen natiijada ay keentay imtixaanka waxay la noqotay filan waa maadaama Anisa ay ahayd gabadha ugu firfircoon dhanka waxbarashada la yaab ayay noqotay inay Anisa ka baasi wayso imtixaankii dugsiga sare macallimiintii iskuulka ayaa ka shiray dhacdadan waxaana loo gudbiyay maamulka iskuulka waalidka Anisa markii ay maqleen in gabadhooda ay ku baasi waysay imtixaankii hooyada Anisa waxa ay qabsatay shoog iyo naxdin waayo kama ay filaynin in gabadheeda ay ku dhici doonto imtixaanka dugsiga sare halka Anisa aabaheed uu kaga mashquulsanaa fiisa diyaarinta Anisa ay ku bixi lahayd Anisa waxay diiday inay dhigato iskuulka maadaama ay ka baqayso inay ku camirtaan ardada kale oo la dhaho damiinad ayaa tahay warqadii imtixaanka looga jawaabayay waxaad ku qortay erya jacayl waalidka Anisa waxa uu bedelay telefoonka guriga ayagoo ka cabsi qaba inuu soo wici doono waardiyihii guriga maalmihii la bedelay rabay telefoonka ayaa waxaa soo hadlay Ridwaan waxa uu soo wacay telefoonka guriga Ridwaan ayaa codsaday in telefoonka lagu dhiibo Aniso si uu la hadlo Ridwaan ayaa la weydiiyay qofka uu yahay waxa uu sheegay inuu yahay macallin ka mid ah macallimiinteeda dugsiga sare oo doonayo inuu gabadha dhiirageliyo oo ay noqoto mid waxbarashada ku firfircoon waalidka Anisa way aamineen warka Ridwaan waxayna waceen Anisa ayagoo oranaya waxa ku soo wacay mid ka mid ah macallimiinta dugsiga sare Anisa ay u qabto macallimiinta ayay tiri imtixaankii ayay igu rideen miyay haddana isoo wacayaan ma la hadlayo mana doonayo ee telefoonka ku damiya Anisa ma oga fursadda qaaliga ah waa fursad dahabi ah haddii ogaan lahayd ruuxa soo wacaya maalinka nolosheeda way iftiimi lahayd qalbigeedana waa u xasili lahaa murugada haysana waa ay ka yara digi lahayd wayna kala warqaadi lahaayeen gacaliyaheeda qaaliga ah waalidka Anisa ayaa ku yiri Ridwaan ayaga u malaynaya macallinka iskuulka macallin gabadha way yara hurdaysaa habeen dambe xiliyadan oo kala soo wac telefoonka waan iska bedeli doonaa insha Allah
nambar cusub ayaan qaadanay ee qoro macallin. kan aad hadda nagala hadlaysid waxaa nagu dhibay dhalinyaro aan wanaagsanayn. macallin waad mahadsan tahay sida aad gabadha u dhiirigelisay. assalaamu calaykum ayaa lagu salaamiyey macallinkii. Ridwaan aad buu u farxay sida nasiibka u leeyahay iyo inuu ka war helo in telefoonka guriga la bedeli rabo. wuxuu go'aansaday inuu habeenka xiga uu soo waco Anisa, laakiin nasiib xumo ayaa dhacday. Ridwaan waxa uu soo wacay xilligii ay ballamiyeen waalidka, waayo haddii uu ka soo hormari lahaa ballanta waalidka, Anisa waxay u fahmi lahayd inay meesha far ku godan tahay amase aysan ahayn waxa soo wacaya macallinkii. markii uu soo wacay waxaa qabtay Anisa hooyadeed. Ridwaan si xushmad iyo sharaf ay ku jirto ayuu u salaamay waalidka Anisa. kadib waxa uu ka codsaday inuu la hadlo gabadha. waxaa loogu dhiibay Anisa. farxad darteed ayay la aamus weyday, ayada oo qaylinaysa ayay hal mar la soo booday. aboowe macaane gacaliya ma noolayd, intay joogtaan waan ku xiisay. intaa oo eray marka isku daba xijisay si aan kala har lahayn. waalidka Anisa waxa u dareemay qofka soo wacay gabadhooda inuu yahay wiilkii lagala cararayay. Anisa hooyadeed waxa ay kala jartay fiilada telefoonka. Anisa waxaa ka tambadiyay jacaylka ay u qabtay Ridwaan. waxay fahmi wayday qorshaha sirta ah oo uu watay Ridwaan, waxayna ka dhigtay qorshihii guuldarro. haddii ay si degan ula hadli lahayd ama markii ogaatay inuu asaga yahay ay ula jiri lahayd inuu yahay mid ka mid ah macallimiintooda, xiriirkooda wax uunbaa ka soo bixi lahaa. Anisa habeenkii waa la jirdilay. ciqaab adag ayay la kulantay dhanka waalidka ah. dil kastoo Anisa loo geysta ma ahayn mid wax u dhiba ayada, laakiin waxa uu noqon jiray mid ay ku sii jeclaatay Ridwaan, weliba si labalaab ah. waxayna la kulantay ciriiri xagga nolosha ah. waxaa la xadiday waqtiyada ay wax cunto, maadaama waalidka u arko in dharagta ay kibir ka keentay gabadhooda. habeenkii cashada ay cunto waa loo diiday. sidoo kale waxaa la xadiday xilliyada ay qolka jiifato, ayadoona inta badan qolka kor looga soo xiri jiray. guriga Anisa ay degan yihiin wuxuu ahaa guri qurux badan, una dhisan sida guryaha boqorada oo kale, una caamiran sida guryaha carabta oo kale. waa guri daaqadihiisa ay ka samaysan yihiin miraayado. habeenkii saqdhexe markii la gaaray Anisa waxay jebisay miraayada, waxayna ka booday daaqada. balse nasiib darro Anisa waxaa galay jajabkii dhalooyinka. Anisa waxaa ka go'an silacaan cusub ee nolosheeda ku soo kordhay in uu mar an ay ka baxdo, laakiin hal dhib ayaa haysata Anisa oo ah inaysan garanaynin halkay ugu hagaagtay inankii Ridwaan ahaa. intii aysan ka boodin daaqada, Anisa waxay u reebtay waalidkeeda fariin u qornay sida tan: hooyo iyo aabbo, waxaan ka baxsanayaa siriciina iyo xasinimadiina. waxaad tihiin cadowga noloshayda. waxaan raadsanayaa nololtiina ka wacan. waxaan ahay qof qaangaar ah, kala garanaya waxa u fiican iyo waxa u daran. waxaan raadsanayaa gacaryahayga Ridwaan. haddii aan waayo Ridwaan, noloshayda laba mid ayay noqonaysaa: in aan isdilo iyo in aan guursado niman kale. waxaan laga yaabin in aan mar uun dib aan ugu soo noqdo gurigiina. ma doonayo in aan noloshayda mar dambe dib aan idin arko. waxaan ka xigaa dhimasho. dhegaystayaal, intaasi haynoo joogto qaybtii labaad ee sheekadii xiisaha badnayd. So divitiisa wajiga ka akhriso divitiisa